26 Juun waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay calan Soomaaliyeed laga taago geyga wadanka Soomaaliya isla markaana gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska ayaa munaasabad lagu maamuusay xalay waxa lagu qabtay xarunta Feesha Governo ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho waxaana munaasabadaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha gobolka Banaadir diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin kala duwan oo lagu casuumay munaasabadaasi intaysan munaasabada bilaaban marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga wadanka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay munaasabadaasi waxa uu si kooban ugu sheekeeyay muhiimadda ay leedahay 26 Juun taasi waxa daba socotay kowda luulyo oo ahayd maalintii labada qaybood ee Soomaaliyeed ay midoobeen heesii halkan laga tiriyay ayaa inoo sheegay iyo dadkii hadlay waxaan isleeyahay aniga caawa waqti badan qaadan maayo sababtuna waxa weeye waana la sheegay taariikhda iyada ah madaxweynaha ayaana odhanaya munaasabadii maanta dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen aniga oo qaba maanta aan ka xumahay dadkii 60kii keenay iyaga oo gumaysi ka xoroobay midnimo daraadeed maanta inay gaar baanu yiraahdaan waan ka xumahay ugu dambeyntii halkaasi waxa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay gobolada waqooyi ee wadanka Soomaaliya in ay qaataan midnimada wadanka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay munaasabada markay soo gabagabowday waxa la isugu tagay barxadda weyn ee xarunta Feesha Governo ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho halkaas oo laga taagay calanka wadanka Soomaaliya waxay ahayd fariin hankeedu aad u weyn yahay saldhigeeduna oo ahaa nabad iyo nolol midnimo iyo cadaalad marka munaasabadan waxay tahay mid aad iyo aad loogu weyn ama ugu weyn taariikhdeena waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynaya 57 guurada ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xora laga taagay dhul Soomaaliyeed waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimaya inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka oohisay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige waxaa tiriyay maansadaas shukri galay erayadaas waxay ahaayeen isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay isma huri karo hilib wada dhashayo hayb qura ayaan anuguna walaalaheen reer Soomaaliland sidaas oo kale waxaan leeyahay walaalayaalow isma huri karo hilib wada dhashay iyo hayb qura ayaan hambalyo Soomaaliya ha noolaato calan saarka kadib goobta waxaa laga riday buller taasoo loogu dabaaldegayay 26 Juun oo ah markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska halkan aan ku suganahay waa xarunta Feesha Governo ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay munaasabad lagu maamuusay 26 Juun oo ah markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa telefishinka Somali News xarunta Feesha Governo Muqdisho